inay gurmad degdeg la soo gaadhaan dadkan tabaalaysan ee abaaruhu halakeeyeen. marka hore waa salaamantiin baal saxaafada waxaan maanta soo keenyay inaan idin soo gudbiyo idinla gudbisaan baa ku saabsan abaaraha ka jira gobolkan Sanaag. gobolkan Sanaag waa gobolka ugu ballaaran gobolada dhammaan Soomaaliland wuxuu ka koobmaa 13 degmo gobol ma jiro waa gobol aad u kala fog waa gobol xoolo leh xoolihii iyo iskaba tagayno imika ciidamada hadal haysee ceelasha wixii jireen waxay noqdeen dhulkan waa ogtiino baabiye qaraad dadkii ma cabi karo roobna meelaha qaar kood labadii sanadood u dambeeyay lagu mubaarak sida darteed xukuumadda hay'adaha dadweynaha gudaheedaba iyo cid kasta oo gacan ka geysan karta gurmadka waxaan ugu baaqaynaa inay badbaadiyaan dadweynaha walaalahooda ee reer Sanaag. waxaan idin leeyahay hanaanada soo gaaro gacan dhaqso ah oo waliba biyo raashin wada socda mar labaad iyo mar saddexaad waxaan ku celinayaa cid kasta oo gacan ka geysan karta abaarta baasan ee ka taagan gobolka Sanaag inay gurmad degdeg ah soo fuduso. waxaan idinka rajaynaynaa inay noo dhigan nugulaataan noona soo dhaqsataan. Yuusuf Cabdi Xasan Cadde, telefishinka caalamiga Universal, magaalada Ceerigaabo. maamul goboleedka Hirshabelle ayaa waxay biyo dhaamin ay ka bilaabeen qaar ka mid ah tuulooyinka ay ka jiraan biyo la'aanta taasoo markaasi sababtay in markii ay gureen wabigii markaasi ay biyaha ka cabi jireen. warkaasna magaalada Joor waxay nooga soo diray Ibraahim Cali Nuur. xili ay ka sii darayso xaaladda biilaaneed ee haysata dadka ku dhaqan gobolka Shabeellaha Dhexe gaar ahaan tuulooyinka ku hareeraysan jiinka wabiga ayaa maanta tuulada Beexaaw oo kamid ah tuulooyinka hoos yimaada magaalada Jowhar waxaa biidhaamin ka bilaabay madaxweyne ku-xigeenka dowlad goboleedka Hirshabelle Cali Cabdullaahi Xuseen oo maalin ka hor ballan qaaday in dadka ay saameysay biilaanta biidhaamin loo sameyn doono. biidhaaminta ayaa maanta waxaa ka faa'iideystay dhammaan dadka ku nool tuulada Beexaaw waxaana biyaha laga qaaday ceelasha ku yaala magaalada Jowhar. madaxweyne ku-xigeenka dowlad goboleedka Hirshabelle Cali Cabdullaahi Xuseen Cali Guudlaawe ayaa ku baaqay in dhibaatadan dadka haysata loo baahan yahay inay u soo wada gurmadaan cid kasta oo gacan bini'aadanimo ka geysan karta. in arrinta ka jirto Hirshabelle ama wabiga Shabeelle dhibaatada ka jirto waa dhibaato qaran dhibaato state ku filayha ma ahan cid waliba gacanta ay ka geysan karto inay ka geysataan ugu baaqaynaa gacan ka geysan kartana gacana ka geysato waa musiibo xaq rabbi ka timid oo rabbaaniya laakiin in la isgarab qabsado oo la dadaalo oo qofaysa laga maarmaanay waxaan ugu baaqaynaa dowladda federaalka oo madaxda uu sareyso madaxweynaha iyo ra'iisul wasaaraha wabiga Shabeelle waxay u baahan yihiin biyo dhaamis degdeg loo sameeyo waxay u baahan yihiin in ceel loo qodo mustaqbalka fog iyo midka dhow noloshooda iyo maaragtay aayahooda in laga fikiro u baahan yihiin biyihii yaraaye meelihii moololka ku go'doomay oo wasaqaha la cabay cudur ka dhashay ma ahan marka baahi oo state oo dabooli kariyo ma ahan waxaan leenahay dadkan haday tahay baad ama wax la cuno ay tahay iyo haday biyo tahay iyo haday daawo tahay intaba way u baahan yihiin laga soo gaaraan leenahay. waa markii saddexdii sano ugu dambeysay oo wabiga noqdo mid qalalan oo biyaha ay ka guraan taasi oo saameyn balaaran ku yeelata dadka iyo dunyada. Ibraahim Cali Nuur, telefishinka caalamiga Universal, caasimada dowlad goboleedka Hirshabelle, Jowhar.